sababihii ugu layaabka badnaa ee la isku furo. Boqolkiiba 50 dadka isguursada guurkooda waxa uu ku dambeeyaa furiin, iyadoo furiinku sanadba sanadka ka sii dambaysa uu sii badanayo. Badanaa sababaha la isku furaa waxa ay noqdaan kuwa qalbi jab ah, balse waajib ma aha inuu noqdo markasta qalbi jab. Qof kasta waxa uu leeyahay go'aan u xor ah uu ku soo afjari karo guurka. Furiinka qaar waa macquul halka qaarna ay yihiin runtii kuwa aad u layaab badan. Haddaba waxa aan idinla wadaagi doonaa 7 furiin ee ugu layaabka badnaa. Daawasho wanaagsan. 1. Haweeney ayaa ninkeeda iskaga furtay geeri been ah oo looga sheegay. 1998 28 jirka reer England oo lagu magacaabo Mike Kilgram ayaa iska dhigay inuu dhintay kadib markuu dharkiisii kaga tegay xeebta. La waayayna meel uu joogo si uu u ogaado inay xaaskiisu u xistay in kale. Markay saacado ka soo wareegtay ayuu gurigiisii tegay. Arrinta layaabka leh uu kala kulmay ayaa ah inay u sheegtay in guurkoodu soo dhammaaday, una sheegtay in aanay u xiisin. 2. Gabadh ayaa ka dalbatay ninkeeda inuu furo sababtoo ah aad ayuu u jeclaa. Haweeneydan u dhalatay Imaaraadka Carabta ayaa iskaga furtay ninkeeda jacayl xad dhaaf ah oo uu qabay dartii. Waxa uuna ahaa mid u shaqeeya iyada markasta, una karin jiray cuntada gurigana ugana shaqayn jiray. Lamaanu murmi jirin, kaliya waxa uu rabay inuu noqdo nin naxariis badan, ilaa ay markii dambe dhibsatay jacaylka iyo naxariista fara badan uu muujiyay, waraaq furiin ahna u gudbisay maxkamadda. 3. Haweeney ayaa iyana iskaga furtay ninkeeda inuu ahaa mid aan waxba qarin. 2012 38 jirka lagu magacaabo Maryam Duni ayaa soo afjartay guurkeeda kadib muddo 6 sano ah ay wada noolaayeen ninkeeda. Sababta ayaa ahayd in aanu ninkeedu ahayn mid qariya sirihiisa, waxaanu dabeecad u lahaa inuu la wadaago siraha faamiligiisa saaxiibadii. 4. Nin ayaa ku furay xaaskiisa inuu arkay iyada oo bilaa makeup ah. Dhacdadan ayaa dhacday 2016. Haweeneydan ayaa salhaan ah Carabiyad ayuu ninkeedu furay markuu arkay iyadoo bilaa makeup ah. Dadka arooska cusub ayaa u badaal doonta xeebta Mamsoor ee ku taala Dubai, iyadoo xilliga uu ka meedhmay makeup-kii ee marsaneed gabadhu. Isla goobtaasna uu ku furay xaaskiisii sababtoo ah uu aqoonsan waayay, wuxuuna sheegay in ay khiyaamaysay oo isticmaashay waxyaalo badan oo la isku qurxiyo. 5. Nin u dhashtay Sacuudiga ayaa furay xaaskiisa saacado yar kadib xafladoodii arooska, kadib markay sawirro soo dhigtay baraha bulshada. 2016 lamaanayaal ka soo jeeda Sacuudiga ayaa saacad yar kadib xafladoodii arooska soo afjaray guurka. Aroosadda ayaa ku sheergaraysay sawirradoodii xafladda Snapchat-ka. Guurka ka hor ayuu kagala sii dardaarmay in aanay soo dhigin sawirradooda baraha bulshada sida Twitter-ka, Instagram-ka iyo Snapchat-ka. Wayna ka baxday heshiiskii kadib markay soo dhigtay sawirro Snapchat-ka, isna wuu furay. 6. Haweeney reer Masar ah ayaa iska furtay ninkeeda sababtoo ah ma uusan qubaysan jirin ilaa 7 usbuuc. 2015 haweeneydan 23 jirka u dhalatay dalka Masar laguna magacaabo Yara Saad Al-Din ayaa maxkamadda ka codsatay in laga furo ninkeeda oo 17 jir ah oo lana odhan jiray Aysar Cali sababtoo ah ma uu qubaysan 8 toddobaad oo xidhiidh ah. Lamaanaha ayaa isguursaday bila kadib xilligii meherkooda. Markay aqal galeen ayuu u sheegay in aanu qubaysan ilaa 8 toddobaad, qabana xanuunka maqaar ku dhacay alerjiga oo biyuhu kicinayaan, waxayna dalbatay furiin una sheegtay in aanay saa kula noolaan karin. 7. Los Angeles haweeneydan ayaa ku guulaysatay bakhtiyaanasiib lacageed oo dhan 1.3 milyan oo lacagta Mareykanka ah, waxayna go'aansatay inay iska furtay ninkeeda. Waana iska furtay 1996 haweeneydan ayaa ku guulaysatay lacag dhan 1.3 milyan dollar oo bakhtiyaanasiib ah, balse uma sheegin ninkeeda. Taa beddelkeeda waxa ay dalbatay in la furo si ay ula baxsato lacagta. 2 sano kadib ninkii waxa uu ogaaday ku guulaysiga bakhtiyaanasiibka, waanu dacweeyay. Garsoorayaashii maxkamadda ayaa ninkii ku abaalmariyay 100% guulaha ay gaadhay.